ciyaalkeena waxay u baahan yihiin in qudaarta la baro. Marka videogan meel dheer gaarsiiyaha sababtoo ah waxa u baahanahay soo ma waa inaan is caawinaa walaalaha kalena gaarsiinaa. Marka carruurteena waxa gudahooda galayo waxay ka korinaysaa jirka iyo maskaxda. Marka qudaarta waa qayb ka mid ah. Marba anoo joogo Soomaali oo suuqa Bakaara dhexmara xamar joogo baa maamo oo qudaar gadaysa waxay dhahday waxay ku dhawaaqaysay qudaarta cun ama isbitaal taagnaa. Wallaahi halas ku celcelina qudaarta cun ama isbitaal taagnaa. Sax eraygaas qudaarta waa in carruurta la siiyaa. Haddaa siinin lacagta qudaarta ku gadan lahaa isbitaal ku tagaysaa ilaa carruurta noo caafiyo. Marka 6 shay marka ku samee ku caawi karto waxaa weeye waa soo kookooba waayo video dheer ma jeclidin oo si carraysiin oo ogahay. Marka beeshinka idinku yar ana xataa ku jira arrinkaas. Marka 6 ku soo kookooba. Number 1 horta adiga cun. Adiga lagu arko adoo qudaar cunayso. Marka adiga ciyaalka adiga ku arkaan in adiga qudaarta cunayso iyo kan kugu dadayna. Channelka intaas video maxaa ku soo dhahay waxay arkaan ciyaalka ee sameynaya. Saayal maya adiga tus adiga ka arkaan. Alright midda labaad qudaara kala duduwan marba mid had ahasi. Midda saddexaad oo aad u jeclahay qudaarta cuntada karna isku dhex dar. Keega idin sameynay keega dhan qudaar ka dhig. Malo waxa idin doo malaha qudaar ka dhig. Anjara idin karna shub ku sii oo ku dhex qarisay sama caafimaadkooda ku jiro. Kadib saasay baranaa. Maxaa ku xigo number 4 waxaa sameynaysaa baaquli ama whatever weel qudaarta ka soo buuxinaysaa. Waxaa ugu dhigaysaa waxaa dhahaysaa qudaar tastagareynayna ilaa koo markii la baraa soma markaan kan soo dhadhama ala kan ana dhadhami kan soo dhadhama kan noocaas waa san camal u dhadhama kan dhanaan waa kan sour whatever oo midba mar fanfana ugu dhigay sa qudaarta u bartay si u bartaan qaar ciyaal qaar qudaarta arkaa mutaqaan ay ku dhahaan mutaqaan mujaclo sababtoo meel qabsan sama dhadhanka qudaarta la qabsan mujaclo. Midda shanaad waxaa sameyn kartaa bar qudaartan caafimaadkaada u fiican tahay. Oo ku weynaane ku dheeraane whatever si carruurta si wax loo dhaadhiciyo kulli waa taan qaanatas maqsas ku dheh saana ku noqonaa. Marka midda 6aad oo muhiim iidan ugu muhiimsan waxaan oo dhan waa inaan mar walba ku celceliso ilaa qudaarta ka baraa. Halkaa maraa barawe raxma ma baranayo ciyaalkayga ma cunayaan ba maaha. Tama maraa barawe ma cunayaan ba maaha. Give up ka dhaqso joojinaysin iska daaya ku celceli cunugu la qabsanaa marka. Aad u la qabsanaa marka beeshinka waa muhiim. Mar hadaa waalid mahnay beeshin ina carruurta cunuga aan waxa u dul qaadano oo waxa aan ku celcelino waa muhiim. Gabar yar oo habro ah baa aad u jeclaa jirtay malaha waxa markaas xidhaysa habro malaha waa jeclahay qudaarta adduunka ugu nacabta adduun qudaarta ay maqasho ay mutaqaysaa malaha waxa ugu jeclahay waa u kariya dhuq way cuntaa maalintii daba anoo karnay ugu qabatay tag la wareegtay waxay dhahday khashahid qudaartan waa nacba waxaan aku dartay ma jecel waxa ma isii jirtay waa baasha ay jeclay soo marka xataa marka karinaysa marka u dhax qari mesh yaa lagu arkay marka maalmaha horeyso oo dhadhanka iyo waxaas inta la qabsanayo si u maleeyaan in wixii hore u cuni jireen cunaan dhax qari ilaa maalintii hore wax yar ku dar wax yar kale ilaa markii daba keega dhan
qudaar bes canjeero dhan wada qudaar ay noqoto. Marka insha Allah tibkaas aan ila share gareynaa waan ogaa iska dhumaa marmar saa u joogo. Waa idin jeclahay ma ka wada in ii sheegaa video duubo ka caajisay qalbiga idinku hayaa. Waana ogaa sida ugu baahan tihiin aad iyo aad tarbiyada carruurta in loo baahan yahay oo qof carruurta ka hadlaya loo baahan yahay waa ogaa taas aad ula socdaa. Inkastoo daliil aan idin sheegnaa fiidiyoyaasha kale meel fog aad gaarsiisiin oo fiidiyoyaashan laakiin dantiina ka hadlaayo meel dheer aad gaarsiin. Marka waxaa idinka codsanaa fiidiyogan inaa fiidiyoyaasha dhan ama channelka kusoo biirtiin kobcinta garaadka carruurta aan ku biirtiin TikTok kobcinta garaadka carruurta. Marka waxaa idinka rabaa in Facebook saas oo kale aad kusoo biirtiin oo fiidiyoyaasha meel fog gaartiin ilaa danteena ka wada hadlaynaa soma carruurteena waa mustaqbalka